بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة هالكاد نقد دعوة سوى جنال كأن يوتيوب كأنه كلين هاي ناشونال تي في. هدي أظهر إنه للشوقين وصبير سيدا كلا أصحابتي هري إنه للجوكتي ينوانو مهد علينا ياي. مركن واحد كسو دوباتان وركي وجودن بيه سومالي وناشونال تي في إذن هاينا وحقيب كنقنية. شير حساسي أهو كدعي في الصومالية يا تليا عصب oo loo magacaabo nisa xogihii ugu dambeeyay ee shirkaasi ayaa daawan doontaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Kenya oo isku raacay qorshe ku saabsan doorashada 16 kursi ee yaala Garbahaare sidaas laga yeeli doona yana waa daawan doontaan jarnaan Mareykan ah oo isbarbar dhig la yaab leh ku sheegay in Soomaaliya ay ka amni badan tahay Kenya qodobkaasi oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan mufti diimeed caan ka ah Soomaaliya yaa dibadda oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qodobada iyo qodobadii nagu soo kordho intaan ku guda jirno barnaamij wareedkayaga ayaa daawan doontaan ugu horreynsa waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe noo saar muuqaalkana la garee oo share garee si uu u gaaro saaxiibo fara badani intaasina waa codsiye markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan inuu ku bilowne daawade madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa xalay shir la yeeshay xubno uu ka mid yahay Fahad Yaasiin waxaana la sheegay in ay ka shirayaan qofkii ay ka dhigi lahaayeen agaasimaha nisa maadaama uu xildhibaan noqday Yaasiin Fare oo ah agaasimaha kumeel gaarka ah ee hay'adaasi isla markaana dhawaan loo dhaarin doono baarlamaanka cusub kulankan ayaa la sheegay in ay qayb ka yihiin Cabdulaahi Kulanajiis Mareexaan Yaasiin Fare iyo Cabdiraxmaan Dheere xubnahan ayaa ah shakhsiyaadka ugu dhow ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxayna ka soo hareen dhammaan saaxiibadii madaxweynaha ee la soo shaqeeyay 5 sano ee la soo dhaafay ra'iisul wasaare Rooble iyo Farmaajo ayaa hore ugu heshiiyay in taliska nisa si kumeel gaar ah loogu dhiibay Yaasiin Fare markii dambe xildhibaan noqday iyo in laga heshiiyo taliyaha cusub ee imaan doona waxaana la sheegay in uusan qayb ka ahayn kulamada wada tashiga ee arinta la xiriira xogihii ugu dambeeyay ee kulankan laga helay ayaa sheegaya in diyada lagu saaray sidii Cabdiraxmaan Dheere loogu magacaabi lahaa taliyaha nisa ka oo waayay kursiga xildhibaannimo dhinaca kalena madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa halkaasi ka wada shirar uu la leeyahay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya iyo beesha caalamka xoga aan helayno ayaa sheegaya in Axmed Madoobe iyo saraakiil ka tirsan dawladda Kenya ay ka wada hadleen sidii ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Jubbooyinka ugu qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga halka ay ka dhacayso doorashada 16 kursi ee taala Garbahaare wararku wuxuu intaasi ku darayaa in dawladda Kenya iyo Axmed Madoobe heshiis ay ku yihiin in doorashada kuraasta 16 ah lagu qabto magaalada Ceelwaaq oo xuduudda labada dal ah kaasi oo ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin hadii uu hirgalo qorshaha Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Kenya ma jiro cid ka hor istaagi karta in amniga doorashada ay sugaan maadaama ciidamada Kenya ay qayb ay ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM dhinacyo kala duwan oo Kenya ay hormuud u tahay beesha caalamka iyo Axmed Madoobe ayaa doonaya in doorashada lagu qabto Ceelwaaq kadib markii ay cadaatay in aan la tagi karin Garbahaare dhinaca kale hadii doorashadaasi lagu qabto Ceelwaaq waxaa fursad weyn doona musharaxiinta ay wataan filla Soomaaliya waxaana cad in musharaxiinta ka soo jeeda beesha Mareexaan ee mucaaradsan filla Soomaaliya ay ku soo bixi doonaan doorashada 16 kursi ee yaala Gado ayaa caqabad ku ah soo gabagabeynta doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka iyadoo xilligan tirada harsan ay gaarayaan 29 xubnood Axmed Madoobe ayaa isku dayaya in doorashada ku qabto deegaan ay ku qanacsan yihiin dadka ka soo jeeda Gado balse uu sidoo kale awood buuxa ku yeelan karo wuxuuna Ceelwaaq u arkaa magaalo buuxin karta labadaasi shardi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la filayaa in maanta uu dib ugu soo laabto magaalada Kismaayo waxaana kadib guddiga doorashada Jubbaland ay ku dhawaaqi doonaan go'aan la xiriira halka lagu qabanayo doorashada 16 kursi ee taala Garbahaare dhinaca kalena
madaxda taliska ciidanka Mareykanka ee Africom General Stephen ayaa shaaca ka qaaday in Kenya ay ugu halis badan tahay Soomaaliya in ciidamada Mareykanka ee loo xil saaray Soomaaliya ay ka howlgalaan. Townsend oo su'aal ugu jawaabay guddi ka tirsan sanadka Mareykanka ayaa sheegay in go'aankii uu madaxweyne Trump ciidamada ugu soo saaray Soomaaliya uu adkeeyay in ay la dagaalamaan Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale sheegay in Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ay tahay kooxda ugu koritaanka badan, uguna hodansan, uguna wax dilis badan dhammaan kooxaha argagixisada caalamka. Waxa uu intaasi ku daray in soo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ay dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalalka deriska la ah ka dhigtay kuwo wajahaya halis ka badan tii hore. Aragtidayda waxay tahay in dagaalkeena hadda goos ah ama aan ugu magac darnay dagaalka u soo safarka uu horseeday caqaba iyo halis cusub oo soo wajahday ciidamadeena, ayuu yiri Townsend. Qiimeyntaasi waxa ay tahay intaasi aanan wax ku ool ahayn oo ayna ku filneen, isla markaana ay ciidankeena gelinayaan halis ka ballaaran sidii hore, ayuu yiri generaalkan. Hadalka generaalkan ee ah in ciidamada Mareykanka ee Kenya ugu halis badan tahay in ay ka howlgalaan Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo dalka Kenya uu ku asiibay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee Al-Shabaab ay la beegsadeen. Al-Shabaab ayaa 15kii bishii Janaayo ee sanadii hore ee 2020 weeraray saldhig ay ciidamada Mareykanka ku lahaayeen gudaha dalka Kenya, halkaas ay ku dileen askari iyo 2 qandaraasle oo Mareykan ah. Gabagabada barnaamij wareedkayaga ayaan ku sii shaqeynaaye markana mufti diimeed caan ka ah Soomaaliya iyo dibadda ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allah u raxmadee Dr. Sheekh Shariif Sheekh Muxdiin Cali oo ka mid ahaa mashaayikhda sida weyn looga qadariyo guud ahaan Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Muxdiin Cali oo ahaa mufti diimeed la qadariyo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho, waxa uuna u geeriyooday xanuunka kaliyaha ka hayay maadaama shaqadoodii ay gabeen si joogto ahna loogu dhaqi jiray. Sheekhan oo da'diisa cagacageynaysa ku dhawaad 100 sano ayaa waxa uu ahaa wadaad u go'ay fidinta diinta Islaamka, waxaana sheekhan dhalay Sheekh Muxdiin Cali oo dal iyo dibad si weyn looga yaqaanay. Sheekh Shariif ayaa sidoo kale waxa uu ahaa xubin firfircoon oo dariiqada Ahlu Sunna wal Jamaaca. Sanadkii 90meeyadii ayaa lagu xasuustaa in uu soo noqday gudoomiyaha hirgelinta shareecada Islaamka ee waqooyiga magaalada Muqdisho, xilligaasi oo dadka ay ku tiirsadeen maxkamadii waagaasi jirtay ee Sheekh Cali Dheere gudoomiyaha ka ahaa. Ugu dambeyntiina, shir lagu hirgelinayo qorshaha ay Soomaaliya kula wareegayso amniga dalka oo dib u habeynta lagu sameeyay, kaasi oo soo qaban qaabiya xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka dhacay Muqdisho. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, wakiilada matalaya dowlad goboleedyada, gobolkani Banaadir iyo saaxiibada Soomaaliya ka taageerta dhanka amniga. Dib u habeynta qorshaha ay Soomaaliya si buuxda saaxiibadeeda dhanka amniga ka taageero ula wareegaysa mas'uuliyadda sugidda amniga dalka oo muddo la qorsheynayo ayaa maanta la isku raacay hirgelinta, iyadoo oo 31 bishan qorshuhu la horgeyn doono Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan. Qorshahan ayaa dhabaha u jeexaya soo afjaridda magaca howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, iyadoo la isku raacay in magaca howlgalku noqon doono howlgal ku meel gaar ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS si buuxdana loo soo gabagabeeyo sanadka 2024. Dhanka kale waxaa la isla meel dhigay halbeegyada iyo ujeedooyinka istiraatiijiyadeed ee hagaya waajibaadka shaqo ee howlgalka ATMIS, qorshaha gabagabeynta howlgalka iyo qorshaha bixitaanka ciidamada iyada oo la raacayo hagitaanka iyo jihaynta doorashada Soomaaliya. Ugu dambeyntii, aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid haddii aad hore inoola joogin. Saaxiibadii hore inoola joogay iyana waan u mahadcelinayaa, balse daawade muuqaalkan leegare oo sheer gare si uu u gaaro saaxiibo fara badan. Intaasina waa codsiye.
balse daawada inta laga gaarayo muuqaalkan kiisi xiga rabbi idinkii nabadgelyo